الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii la magac baxay islaaxul mujtamac ee uu lahaa Muhammad bin Salim al-Bayhani. Muhammad bin Salim al-Bayhani asigoo camoolo ah oo indhala ayuu kitaabkani islaaxul mujtamac diyaariyay oo maanta bulshada wax weyn ay u tarayo oo wax weyn ay ka faa'iideen, wax tar badan u sheegay. xadiiskii ugu dambeeyay ama cashirkeeni ugu dambeeyay wuxuu ahaa al-xadiith al-cashir, xadiiskii 10aad oo nabiga sallallahu alayhi wasallam kaga hadlayay muslimka in la caayo oo af lagaadeeyo inay falaaganimo ay tahay, dilkiisuna gaalnimo inay tahay. qofka oo ku gaaloobay qof muslim oo silakac ah, kas ah, edab daro ah oo u dilo inuu ku gaaloobayo. الحديث الحادي عشرة waxaan halkan ka galaynaa xadiidkeeni 11aad oo min kitaab islaax al-mujtamac kamid ahaa ayaan halkan ka galaynaa. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وري الله كراد نخذه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نبي صلى الله عليه وسلم حيري: لا يشير يوسن كتاجن أحدكم أحدكينا على أخيه المسلم ولا الكيس مسلم كأيوسن كتاجن بالسلاح هب يوسن كتاجن. لا يشير يوسن كتاجن أحدكم أحدكينا على أخيه ولا الكي بالسلاح هب يوسن كتاجن. هب نوع والبو نقن كرا، قريب نقن كرا، مدي بو نقن كرا، bir buu noqon karaa, wax walba oo qofkaad dib u geysanayo sida gamuunkoo noqon karaa. hub yuusan axadkiina ku taagin walaalkiis muslimka ah. fa innahu laa yadri, asiga ma garanayo, lacalla shaytaana, shaytaanka inuu mudan yahay, yanzicu mid ka siibaya inuu yahay fii yadihi gacantiisa. fa innahu laa yadri, asiga ma garanayo, lacalla shaytaan, shaytaan inuu mudan yahay oo mudnaantiis inay tahay, yanzicu inuu ka siibo fii yadihi gacantiisa. adig waxaad islahayd ku guulguul ku waabi baad islahayd, way kaaga fakatay, ama toori ahaato ama markaa qori ha ahaato, wuu kaaga faktay. adig waxaad ahayd ku dayday iyo ku waabi bay kaaga ahayd, laakiin shaydaan ayaaba ka siibayaba gacantaada. fayaqacu oonu ku dhaco في حفرة قد من النار أو نار تكميت إنه كدعو وقفك أو دلي درتت أو نار أقله. الله سبحانه وتعالى وحيري: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. marka inta ugu horeysa baan ka soo qaadanaynayo fayaqacu fi hufratin kadibna oo ku dhaco god oo min النار naarta kamid ah. Allah subhanahu wuxuu leeyahay marka qofkii qof muslim ah si kasa u dilo fajazaa'uhu jahannam, abaalgudkiisu waa jahannamo, waa naarta jahannamo buu galayaa qofka marka qof muslim ah si camdan ah oo u dilo. xadiidka midkii waxa uu horeeyay oo ka hadlay wuxuu yiri: yuusan ku taagin axadkiina. waxaba la diidayaa inaad ku taagto, iskaba daayay inaad markaa ku talagal aad u disho, iskaba daayay inaad hubkaaba la aado oo aad hamiso inaad ku disho ayaa la diidayaa. marka qofka muslimka dhiigiisa meel dheer buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala gaarsiiyey, nabigana meel dheer buu gaarsiiyey in qof muslimka aan la dili karin oo aan si degdeg dhiigiisa aan lagu degdegi karin. waana soo sheegnay saddexda qayb oo qof muslimku lagu dili karo ilaa biixday 3 athayb az-zani iyo wakada iyo wixii kale oo la mid ahaa waan soo cadaynay. marka waxaa la diidayaa inaad qofka muslimka aad ku taagtaa, la diidayaa iskaba daayay inaad oo si kas ah la aado. fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha waghadiba Allahu alayhi, ka waxbay u noqonaysaa jahannam mid oo ku waadar dhexdeeda. Allah subxaanahu wa tacaala uu carooday midka qofka muslimka dilay, walacanahu lacnaday,
وأعد له عذابا عظيما وحون الله الدياري عذاب مركا وين بو إله سبحانه وتعالى الدياري لا يشير أحدكم أحد كين يوسن كتاجن على أخيه ولا الكيسة بالسلاح هوب يوسن كتاجن فإنه لا يدري أسيق مقرنيه لعل الشيطان كأنه كسيبه أما فإنه لا يدري فإنه أسيق هوب كأوسيتو لا يدري مقرنيه لعل الشيطان كأنه كسي أو مذن يهي ينزع مد كسيبه إنه يهي في يده قعنتيسو كسيبه فيقع في حفرة مركا وكدعو في حفرة قد ومن النار نار كما رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم رواية مسلم أوليه النبي صلى الله عليه وسلم حويري من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه قفكي ولالكي أو كو إشارة أو كو تاغو بر أو كو تاغو ملائكة با لعنة ديسو حتى يدعها إلا أو كتاغو oo arinta uu ka haro malaa'igta ayaa lacnadayso wa in kaana akhihi li abihi wa ummihi hadii uu yahay xataa walaalkii aabihi oo dhalay ama walaalkii hooyadiisa dhashaba ahaado walaalka adigu kula dhashtay hooyada iyo aabaha midka ay dhalan ba ahaade hadii aad hub ku taagto ama aad bir ku taagto malaa'igta baa ku lacnadaysa ilaa waxa ka tagto wa xadiis kale fi dhiga xurmada uu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa oo gaarsiiyay من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخيه لأبيه وأمه قفك ولالكي أهوب كتاغو أما بر كتاغو أو كو إشاره ملائكة بالعنة ديسو إلا وحا أو كهرو هدوء يا حتى ولالكي أسيغل دشي هدوء يا حتى لعنة دي ملائكة باكو دعيسو إلهي سبحانه وتعالى نحيري والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كوا دبايا مؤمنات كأدمرك iyo mu'miniinta ragga ah oo dhibayo oo hubka ku dhibayo ama aflagaadeenaya ama si kaleba ku dhibayo bigayri maktasab ayago aanan waxba ka galabsanin oo waxba ka haleynin waxba ka kasbanin oo dhibayo faqad ihtamalu waxay xumbaareen buhtaanan wa ithma mubiina been abuur iyo dambi cad bay xumbaareen kuwaas ilaahay subxaanahu wa tacaala nuu ciqaabaya faqad ihtamalu buhtaanan wa ithman mubiina xadiidkan marka wuxuu leeyahay faa'iida taa u sareyso buu leeyahay oo aad u weyn iska ilaali walaalka haddii hooyada iyo aabbaha xataa ay dhaleen hub ku hishaarin maanta waxaynu arkaynaa masaajidihii oo la galayo hubka la galayo haddii ay noqoto mindi haddii ay noqoto marka qoriga haddii uu noqdo haddii ay noqoto gamuunka masaajidii baa la galaya nabiga sallallahu alayhi wasallam uu xaaraantimay arinta in la galo masaajidaha hub wax la yiraahdo in la galo marka qofka walaalka muslimka waa inuu amarka nabiga oo qaata oo san khilaafin wax walba dhibaato u keenayna oo diintiisa khilaafayeen inuu iska ilaaliyo al hadith athani 10 hadithka 12 aynu galayna wa anhu ama an abi hurayra asiga ba iskalehe رضي الله عنه وحد أوغاتا كتاب كان الإصلاح مجتمع حديث انت بدن وحاوريه أيا وريي أبي هريرة أيا وري أحاديث تسوق برا أبي هريرة أيا إسكالي سيدا أولا صعمرك وصلنا نقن دونا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة لقوري الأكراد نقضي وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حويري اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك الأكبر والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم مركا حديث كان أبي هريرة ليقول وحويري نبي صلى الله عليه وسلم وحويري أسيقنا اجتنبوا كفوغاذا أو كديراذا السبع الموبقات تضبط وحلاكته تضبط الشيء وحلاكته كفوغاذا قالوا حي هذين صحابة يا رسول الله رسولك يا الله وما هن محينهن تضبط محيهن قال وحير النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر إلهي إن له شريك يله وحبي هلاكته كفوغاذا واتي النبي صلى الله عليه وسلم هذي أن تجعل لله ندا
واتي حبيب كان محمد صلى الله عليه وسلم أويري أن تجعل لله ندا وهو خلقك. waxaa ninbaa nebigu yimaada markaas wuxuu yidhaahday yaa nebiy allah dembikeebaa ugu weyn oo ilaahay laga galo. markaasuu nebiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi allaha oo ku abuuray an tajcala lilaahi niddan, ilaahay inaad shuruko u samayso oo ilaahyo kale u samayso ayaa dembi weyn. wahuwa khalaqa, asigoo ku abuuray, khalaqaka asigoo ku abuuray inaad shirki usii samayso ayaa daran. وفي آية الله سبحانه وتعالى وحوليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى مدافع قفك الشرك يالو أو إله كلا لما يعيه أو أشريك يا إله سبحانه وتعالى أمدن بلافه أو مدافع. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله وعافية وإسكرافة أنت وحيك السكو قفك الضونون إله سبحانه وتعالى وعافية وحي شركك الصهري. والسحر أرنت لوات والسحرك تدود وحلاقته أرنت لوات والسحر قفك إنه سحره ونقضه سحره خير ملها بركة ملها ما إفتينه أنت بدن دتك وح سحره بقولك وصاشن استقال لبعشن وقوات ووسق بدن قوة أن شرف لهن وقوة أن وجهه ذا إس النورين وقوة إله سبحانه وتعالى الدليل وعينك هوس دبادان meelaha wasaqda ah, qashin qubiyada ah, iyo meelaha maaragta musqulaha ah, iyo meelaha aysan ku habooneen qof sharaf leh oo bini aadam oo ilaahay karaamay inuu fadhiisto. intaas bay isku dayaan, inta badan kaadi iska dhaqaanee maba qabaystaan xataa iska wadaaya. sixirka Allah subxaanahu wa ta'ala meel daran ayuu gaarsiiyay nabigiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. محيي الله سبحانه وتعالى مركا الله سبحانه وتعالى وحيري قال ذي يهود وحراعين ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وحي أخرناين أما أخرنا شياطين حلقي النبي الله سليمان أو نولا. وما كفر سليمان موسن قالوا بني ولكن الشياطين كفروا. شياطين تي سحر كراعضي أو وحي ددك وآخرين جرين راعضي أيها كفرسي محايا يعلمون الناس السحر ددك وحي بريين أي بري جرين سحرك. وما أنزل وحلوصو دجي على الملكين أو لوذي ملك أو بابليين تأهيو هاروت وماروت ذو مغعابي. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. عدنا ما يسن بريني إلا أي رهذان كانوا فتنة وكذا وكذا إنيان أي رهذان ها مركب مهمة كسو قادنين أي. ولكن الشياطين كفروا. شياطين تي أيا كفرسي محيكو كفريان يعلمون الناس السحر ضدك السحر كبري جرين مركب سحرك دباتات ودرن أيوليه نبي صلى الله عليه وسلم وحولي قفك كاهن وتو أما قف وحشيغو أما من أتى عرافا أو كاهنا قفك مت وحشيغ شيغ أمت كاهنا وتو أو وحا وشيغ يا آب أو آمنو وحوكو قالوا أو كفري وحي إلهي أو كسو دجينو محمد أو كسو دجي أو كفري سداسو النبي صلى الله عليه وسلم أوليه سحرك إسكيلالي ولال مركا أرنت سدحاد نوحيتاي وقتل النفس إن نفل ديلو التي حرم الله تاسو إلهي حارانتميي إلا بالحق وحربه أو حقه موياني إن لقدلو إن قف مسلم عن لدابعين وعن نفس الديسة لتابنين ولدلين تاسين وحرام وحبي هلاك تعدي السيدة على السماء. إلهي سبحانه وتعالى قفك مسلم dhiigiisa aad buu u xaaraantimeeyay in la taabto ila dilo oo waxba la gaarsiiyo. aad buu alla subxaanahu watacaala u diiday. waa aayaddii hadda aan akhrinayniye qofkii qof muslim u dilo kas u dilo dhibaato baa ku dhacaysa asigana. arrinta afaraad waxay tahay wa aklu riba, qofka inuu cuno ribo inuu cuno. ribada alla subxaanahu watacaala meel aad u dheer buu gaarsiiyey. riban waxaa la yidhaahdaa qof baa wuxuu ku leeyahay shaygan ama tarmuuskan ama mobeelkan, tusaale mobeel uu ku leeyahay, mobeelkan hadda hadaad iga gadanayso waa $100 la gadaya, laakiin haddii aan kaa sugayo $200 ayaan kaa siinaya. marka lacagtii uu telefoonka kusoo gaday inuu faa'iido u saartay oo faa'iido aad u sii dheeri ah oo saartay, ribada taas ayaa ka qayb ah, ayaa ka mid ah. marka
qofkii waxaad leedahay haddii aad hadda ii qaadayso $100 haddii aan kaa sugay laakiin oo aan ii kasaynayso wax badana kaa qaadan waa ribo. taas waa ribo marka iska ilaali. Allah subxaanahu wa tacaala ribada meel dheer buu gaarsiiyey. wuxuu yiraahday yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu riba adcaafan mudaacafa wattaquu llaha lacalakum tuflixuun wa atiicu llaha warasuula lacalakum turxamuun. ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wattaquu nnaara alatii uciddat lilkaafiriin wa atiicu llaha warasuulahu lacalakum turxamuun. warkuu ilaahay rasuulkiis rumeeyo ribada ha cunina. adcaafa mudaacafa, ilaahay ka cabsada. waxaad mudantihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad markaa aad liibaantaan baad mudantihiin, naartiina ka baqa. wattaquu nnaara alatii uciddat lilkaafiriin, waxaa loo diyaariyay kuwa kaafiriinta ee mu'miniine idinka naartaas ka baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo leeyahay. marka ilaahay rasuulkiisana adeeca waxaad mudantihiin inaa markaa ilaahay idin naxariisto. marka وفي آية أخرى آية كلا إله سبحانه وتعالى وحوليها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هرتم أكتهاي قفك الربا عنيو إنو كبيت يكوب إله سبحانه وتعالى لدقال دونه سدح كوح أيو إله لدقاليا كو مدك قادع الطريقة أو ودد قوينيو إله ولا دقال دونه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. آية سورة المائدة كجرتاي قادع الطريق إله ولا دقال دونا لبو وحبو إله سبحانه وتعالى لدقال يا قفك وليقا حدي إله سبحانه وتعالى وليقيسي للطابطو أولا ديبو حديث صحيحا وجرا من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قفك وليقا ديبو oo dhibaatay waxaan ogeysiiyay dagaal baan ogeysiiyay ay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay xadiithul qudsi. aanid saddexaadna waxay tahay qofkii riba cuna asiguna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu la dagaalayaa. qofka ribada cuna ilaahay wuu la dagaali, qaadicu dariiq ilaahay wuu la dagaali, iyo qofka weliga dhibo wuu la dagaali. waa xadiis oo saxiix ah oo Allah subxaanahu wa tacaala ka oo hadlayo xadiithul qudsi ah man aadaa li waliyan faqad aadantuhu bil harbi. qofka weligayga dhibayo oo dhibaato u geysanayo waxaan ogeysiiyay dagaalkaygii baan ogeysiiyay. oo aayadan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay kuwa Allah subxaanahu wa tacaala rumeeyo ilaahay ka baqa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي كتجا وحيدين كهر أو من الربا ربا كهر إن كنتم مؤمنين. هدي أتكونوا مؤمنين أتين فإن لم تفعلوا هدي أذن سدا فلن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هدي أسدا كنت لجلين وحد كنت لجشان وأت أوجاتان دجال وإلهي حقي رسول كيس إذن كي مادي آيات كتلا قشان وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم هدي أتصولابتان وطوبة كنتان وحد ليذهن مال الكينة مالها أوصر بات ليذهن أما الله فيه مال كينة بات ليذهن لا تظلمون ولا تظلمون إذنكو أنا ضد المنين إذنكو أنا إذن دول منين بات ليذهن. marka saddex mar ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu yiri culimada ay yiraahdaan saddexda koox oo ilaahay la dagaalayo waa kuwa waliya dhibay, kuwa qaadicu dariiqa ah iyo kuwa markaa ribada cuno. marka aayada qofka qaadicu dariiqa ah waxa weeye inma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. kuwa ilaahay rasuulkiisa la dagaalayo jazahoodii abaalgudkooda waxa weeye wa yas'una fil ardi fasadan waxay dhulka ay ku soconayaan fasaadin an yuqattalu waa jasahooda abaalmarinkooda in la dila أو يصلبوا أما إن لدلدلا أو تقطع أيديهم أما إن قعموه لجرجرا وأرجلهم من خلاف أما لغوه إصطاف لغو قويا أو ينفوا من الأرض أما دولك لغو مسافوريا كو جد قويدا قادع الطريقة حديثا الله كبخين وحي لكل ميان وأي صوتو بكينين دقال إلهي بي لكل ميان إلهي باكو إعلامي دقال كوا آيغانا أو ربض عني وعلمت kuwa maaragta waliga dhibayna waa la mid. marka arinta shanaad waxay tahay wa aklu maalil yatiimi in la cuno agoonta maalkeeda in la cuno ayaduna waa xaraan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo sheegay agoonta maalkeeda in la cuni karo laakiin sifo ee tilmaam lagu cunayo. Allah subxaanahu wa tacaala
محويري وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إله سبحانه وتعالى وحوليه هاي أقونت جريبة أو امتحانا حتى إذا بلغوا النكاح إلا أي كجاريان دأذا جورك أما إلا أي كخانجارين واد امتحانيسان أقونتا فإن آنستم منهم رشدا هدي كو أركتان وحقرت نما أما هنون وحقرت نما هدي كو أركتان فادفعوا ديبا أوسيا إليهم مالكوذا حقوذا إليهم أموالهم إليهم حقوذا أموالهم مالكوذا سيا ولا تأكلوها أقونتها كعنين مالكوذا إسرافا إذنكو حد قذبكو وبدارا إذنكو marka ku degdegayo maalkooda ku degdegis ku samaynayo intaysan weynaan an yakbaru intaysan weynaan maalkooda israafa ku cunina degdeg ha ku cunina ayagoo marka aan weynaan waman kaana ghaniyan falyastacfif haddii aad ghani tahayo alla subxaanahu watacaala taajir kaa dhigay dhoorso oo si tartiib u dhoorso iska daa maalka waman kaana faqiiran haddii aad baahi ku hayso ilaah faqiir kaa dhigayna falyakul cun bilmacruuf si wanaagsan ku cun buu ilaah subxaanahu watacaala uu leeyahay فإذا دفعتم إليهم أموالهم هدي أتوديبتان وأتسيسان مالكوذا فأشهدوا عليهم ويالا مقات ويالا وكفى بالله حسيبا فأشهدوا عليهم مرقات ويالا مركا وكفى بالله حسيبا إلهي أيا كفلا حساب أهانتوذا أم حساب إلهي با كفلا مركا أقونتا وأتسك إلى النساء بدن إلهي سبحانه وتعالى نحوليه فأما اليتيم فلا تقهر أقونت عنانننا أقونت عنانننا الدباتيننا هديلنا حديث برن أقونت كسو أرضين ويجرتا أقونت مركا إسكا إلهالي دباتداسي ليهين وكان أقون مالكيذا كليح عديات إلهي فقير كادقي ولي بقفك أسعونا وقفك مالكوذي هايو oo ayaga markaa wakiilka ka ah weeye maan cid walba banaanka ka soo dhacday maalkooda inay taawato looma ogola qofkaas oo wakiilka ka ah ama walaalkii aad ama hooyadii ahaato ama cid kale ba ahaatee asiguna maxaa laga rabaa hadduu faqiir yahay inuu si macruuf ku cuno oo waxba oo sida u badan uusan ku cunin hadduu taajir yahay inuu ka dhoorsado oo waxa iska daayo ay aayaduna tilmaamtay taasina waa agoon maalkiisa in la iska ilaaliyo ayaa wanaagsan haddii aad ilaalinin halaag baa dhacayo oo todobada wax halaagta bay ka mid tahay watawallaa arinta shanaad waxay tahay arinta lixaad waxay tahay watawallaa qofka inuu jeesto yowma zaxfi maalinta garguurashada inuu qofka jeesado taasina waa wax bay halaagtaa watawallaa yowma zaxfi qofka inuu jeesto maalinta garguurashada ee gaal iyo muslim loo dagaalamayo qofka inuu jeesto oo baqo taas ayadan wax bay halaagtaa arinta toddobaad ugu dambeys waxay tahay waqadfu almuhsanaat waqadfu in lagu tuura in lagu tuuro zina in lagu tuuro المحصنات قبلها دورسن المؤمنات أو مؤمنات كأ الغافلات أو حسب إلوسن زنا وحياة وحمان تبا أو إلوسن إن لو طور الزنا إن لو طور أيضا وحبيها لكتا وقذف المحصنات قبلها مؤمنات محصنات كأ دورسن إن زنا لو طوره أو زنا لو شيغو المؤمنات مؤمنات كأ الغافلات غافلات كأ أو حسب إلوسن أيضا وحبيها لكتا maalin kuwaba waxay ku tuureen Aisha aad way zinaysatay iyo sida ay wakada ay yiraahdeen Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku radiyay oo Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu fi ad-dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fi 'adhabun 'azim idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilmun وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا
إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. مركا إله سبحانه وتعالى وحوليه هاي ولولا إذ سمعتموه ومحايدان مخل إذ سمعتموه مركي أد مخشين قلتم ما يكون لنا وحانا أنا أن أرنينه نومها بونو أن نتكلم إنهم كهالنو بهذا تني سبحانك هذا الله بعيبك نزهنو تنوى بهتان عظيم وبهتان بين أبو رشو وين ويان يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين وإذن كوانين يا الله سبحانه وتعالى أن تعودوا إن تكون وطان وكون قطان لمثله تنوك الأبدا وليجين إن كنتم مؤمنين هديات مؤمنين تهين إلهنا إذن عدي آيات كيسة وإذن عدي إلهنا وعلى عليم أو فلسوبا كوا لكن جعل إن فاحشة إفافته بلدك كفافيان إمالها كفافيان جعل أو في الذين آمنوا كوا الرمي إن كفافيان أضونيو كوا صحو سكنها عذاب حنوجيو الدنيا آخر عذاب بيسوغيانو الله سبحانه وتعالى وأوكيا أيغانا مؤغان عذاب بسوغي سيدا اوغادا marka cisha bay wuxuu ku gamayaan waxaasay ku tuureen Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku radiyay marka gabdha mu'minaadka waxaas ilowsan in waxa lagu tuurana waa dhibaato Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri innal ladina ajramu kanu min alladina aamanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun kuwa dambaay waxay ahaayeen dadka mu'miniinta Ilaahi rumeeyay marka ay meel ay soo maraan way ku qusquslayaan markii ay soo marayaanna wax bay ka sheegayaanoo been bay ka sheegayaan way caynayaan وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين وحصل لهم مدرسين إن إلا ليانا لهم مدرين وحبيك الشيغين إيه لكو مركيتين أيغو كفر حسن بي الله ونيان الله سبحانه وتعالى لكو حكوسو ختمي وحوئي هذي كوا الله رمي أيغونا ما لنت قيامة مركي لقارو ويكو قصلا يعني إسر الصورة دانا الله سبحانه وتعالى كليه وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ما أنت أيكو إلى رمي كفارتي قال أيكو خصليان على رأيك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون مرك وحيك داونيان أيو ديكسن أو سيحن أيو وحيك داونيان سرير بيك داونيان الله سبحانه وتعالى مرك موسى أبال مرينين وحي أي سميان قالها أو أي فلان ميو إليك أبال مرينين نعم وهي وك أبال مريي مرك قبلها مؤمنات كائن وحا لغطو أيضا وحبي علاكتا اجتنبوا كفقاد السبع الموبقات التضض وحالاكتو قالوا وحي لذين صحابة يا رسول الله رسولك الله وما هن محيرين قالوا وحير الشرك بالله إلا إلا الشريك يله والسحر سحر كويه وقتل النفس قفك إنه نفدله التي نفتاس حرم الله إليه حالا تمين دل كذا إلا بالحق حق موياني وأكل الربا إن ربا لعنا وأكل الربا إن ربا لعنا وأكل مال اليتيم أقول مال كذي إن لعنا أيضا وحالان تبيه وتولى إن جيت سدا يوم الزحف ما ننتقر قورشدا وقذف إن زين لغطور إيا حمان المحسنات قبلها دورسا المؤمنات مؤمنات الغافلات وحاسلوس إن لغطوره رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث عشرة حديث كسدح التبانات أي نجوكنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة آلك بربحوه سبعة تضبوا يضلهم الله إلهي باهوسينيو أو هوسينيو في ذله ذلجيس أي هوسينيا سبعة تضبوا يضلهم الله إلهي أو هوسينيو تعالى سريه في ذله هوسكيس أو سينيو يوم مالين لا ذل أوسن هوس جرين إلا ذله هوسك إلهي موياني أما حد أورين كرتا سبعة تضو يضلهم الله أو إلهي هر أوسينيو يوم في ذله هركيسة يوم لا ذل مالين أوسن هرجرين إلا ذله هركيس موياني تضوض أوهيلي سعد دقيس مرككو إمام عادل مدحوين عدالة أو عدل عدالة فلا أو ددكيسو عدالة فلا أو مركاسي وناكسن وحكمة أيات هرسنا يومالين أوسن هر أوسن جرين لبو وشاب شاب أمر دلنيرو نشأ كسو برباري في عبادة الله إله عبادة كسو برباري أسيكون هوس باسكو هوس كاسبو أرسنايا سدح ورجل نين قلبه قلبيسا
معلق لسري أو لسري في المساجد مسجد كالسري قلبي جيسا ورجل قلبه قلبي سؤويها معلق مثل سري أما متكحرا في المساجد مسجد كحرا أسغنا إلى سبحانه وتعالى وحبو صينيا حربو صينيا ورجلان لوقف تحابا في الله إلى درتي اسكو جعل هذا اجتمعا ويكو ميان عليه إلى درتي بيكو كل ميان وتفرقا ويكو كلا تغيان عليه إلى درتيس بيكو كلا تغيان markay kala istaagayaan ay baxayaan alla dartii bay ku kala baxayaan ayagoo isjecelna ay kulmayaan ayagoo isjecelna ay kala tagayaan kuwaasina alla subxaanahu wa ta'ala harbuu siinaya warajulun nin dacatu ay u yeeratay imra'atun habeenay daati nasabin taasoo nasab u saaxiib daata mansibin taasoo منصب أو قبيل وين كسو جيدا أما قبيل اسموذي كبري أو كسو جيدا وجمال إيو قرح صاحبه فقال مركايري ورجل نين دعته ويرتي امرأة هبيني هبيني ذا سودات منصب أو قبيل صاحبه قبيل اسموذي إنو أبوت ليهي اسموذي إنو وحول بأكمل سنيهين لكن إله سبحانه وتعالى وحويري كلا إن الإنسان ليضغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعة إنسان كإسكبدا إيه وحو أركيا ومتقوقي وي لكن وكأركيا حقوقيسة أما إسكو في الناشا وجاري أوليا وكأركي دونا إله سبحانه وتعالى أينا لو نقن دونا أو لابن دونا وجمال يخرح صاحبه فقال مركانينك وحويري فقال يري إني أخاف الله إلهي بنك بقيا كو مبانو جيركا مبانو الله بانك بقايا إيقا دادي أو سدا إيرادي شن ورجل نين تصدق صدقيستي بصدقة صدقيستي فأخفاها كخريي فأخفاها صدقة ذي كخريي قعنتيسي بذح ذي كخريي حتى لا تعلم انت سن أغانين شماله قعنتيسا bidixda ذا ما تنفق وحي بحنيسو يمينه مديك شنبان هايو والح وأرنتا لحات ويه ورجل نين تصدق صدق لبحي بصدقة ورجل نين تصدق صدقيستي بصدقة صدقه فأخفاها صدقة كخريي حتى لا تعلم انتيسن أغانين شماله قعنتيس بدحذا ما تنفق وحي بحنيسو يمينه قعنتيس مديكتو حي بحنيسو قعنتي بدحذا كخريي مديكتو كديبي صدقه لبحي كاسن مالين بوهار هيلي دونا ورجل نين ذكر الله إلهي حصوصتي أو حصي خاليا ميل قارك حصي ففاضت أي أويسي أما أي شبنتي عيناه إنديس أي شبمين إلين أي كشبمين أو مركا إلى درتي سؤوي ورجل نين وامد كتدواده ذكر الله إلهي حصي خاليا ميل قارك حصي أو قوني بلدكي كوبو كبحي ميل بو هذي أو مركا قطها هذا ميل عبادة هذا ففاضت عيناه إنديسي باشوب مي أو إلين كدادتي مركا تدواdan shay oo hadda aan soo sheegnay dumarka hal bay ka soo galayaan naaga hal baa la sheegay lixda kale nin baa lagu sheegay walow ay qaar ay wadaagaan rag iyo dumarba ay wadaagaan waxay ka soo gashay gabadha meeshii ugu darneeday ka soo gashay oo maxaa la yiraahday warajulun dacathu imra'atun daata mansibin wa jimalin gabadha waxyaabaas inay u janjeerto dhanka xumaanta iyo waxaas inay u janjeerto ayaad halkan ka fahmi kartaa tadawaa la soo sheegay hal qayb ayaa lagu sheegay hal qayb bay ka leeyihiin qaybta ay ka leeyihiin waa qayb xun oo ah inay markaa nin ay u yeerato oo sidaa iyo gabar intaa la saaxiib ah oo qabiil sidaa leh oo qurux u saaxiib ah ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay halkaas khaslo ayaa gabdhaha lagu sheegay marka waxaa la yiri gabar u yeeratay nin ay gabar u yeeratay gabadhaas qurux iyo mansab u saaxiib ah markaas dhahay ilaahi subxaanahu wa ta'ala baan ka baqaya oo yiraahday halkaas qasla ayaa ka soo gashay dumarka laakiin wa imma waxay wadaagayaan warajulun tasaddaqa bi sadaqatin way wadaagayaan gabarna sadaqa way la bixi kartaa oo way la bixaysaa iyo gabarna ilaahi subxaanahu wa ta'ala way xusi kartaa meel gaar ah laakiin kuma xusayso gabadha waxa u qeyr badan qolkeeda jeefka ah sariirteeda jeefka ah ayaa u qeyr badan ba inay ku xusto
meelas gaarka la diiday inay aado ayada kaligeed, laakiin ninka uu aadi kara meel gaar ah oo Ilaahay ku xusayo, gabadha qolkeeda baa u wanaagsan oo una ajir badan. taasi way wadaagayaan rag iyo dumarba. imaamun caadil, laakiin gabadha shaqo kuma laha. imaamun cadlun, madaxweyne caadil ah, gabadha xukunba laguma talagelinba inay waxba xukuntee. Ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa aayada xukun wax ka wanaagsan siiyey oo maamul weyn siiyey. washaabu nasha'a fi cibaadatillaahna way wadaagi karaanoo rag iyo dumar, gabar dhallinyaran way kusoo barbaari kartaa. iyo warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid, taasina gabdha iyo dumarka iyo ragga ma wadaagi karaan. oo gabadha waxaaba u kheyr badan inay gurigeeda ku dukato ayaa u kheyr badan. xadiidkii saxiix ahaa muxuu ahaa? gabar yeesan guriga ka bixin biqeyri idniha, walow masaajid ba ha aadee, ninkeeda ayadoo isan idmin yeesan guriga ka bixin. meel kheyr oo masaajid ba ha aadee yeesan gurigeeda ka bixin. waa xadiidkii dhahay gabadha marka waxaa u kheyr badan inay gurigeeda ay ku dukato ayaa u kheyr badan. imaamna ma wadaagaan, taasi ma wadaagaan. warajulaani taxaaba fillaahi way wadaagaan, dacatu ayagaaba lagu sheegayba. marka wixii kasoo galan halkaas khaslo oo toos loogu sheegay, khasladiina waa qeyb xun bay ka istaageen. tan waxay ku tusinaysaa gabdhaha inay aad ugu janjeeraan dhankaas xumaanta, inay ugu janjeeraan. 7 todoba yudilluhum allahu ilaahi har oo siiyey oo siinayo tacaala sareeyey fii dillihi harkiisa, yowma maalin laa dilla uusan har jirin ilaa dilluhu ilaahi hooskiisa mooyaane ama harkiisa. kow waxaa iskal imaamun cadlun, madaxweyne cadil ah, wa shaabun nasha'a iyo shaab ku barbaaray fii cibaadatillaah ilaahi cibaadadii, wa rajulun rajul qalbuhu qalbigiis oo yahay mucallaqu mid la suray ama ku xiran fi lmasaajid masjidka, wa rajulaani laba nin taxaaba fillaahi alla dartii isku jeclaaday, ijtamaca calayhi ilaahay dartii bay ku kala tagayaan, ijecel ay isu jecel ilaahay dartii isku jecel bay ku kala tagayaan ay ku kulmayaan, wa tafaraqa calayhi ayagoo ilaahay dartii isku jecelna ayna kala tagayaan. wa rajulun dacathu imra'atun, inin ay u yeeratay imra'a u yeeratay daata mansibin wa jamaal, taasoo qabiil u saaxiiba iyo quruxba. markaa ninka wuxuu yidhahday innii akhaafullah, ilaah baan ka baqay. warajulun ninna tasadaqa la baxay sadaqatan bisadaqatin sadaqa sadaqaystay, fa akhfaaha ka qariya xataa laa taclama ila intaysan ogaanin shimaaluhu gacantiisa bidixda maa tunfiq waxay bixinaysa yamiinuhu midigtiisa. warajulun dakara allaha khaaliyan, mid ilaahi subxaanahu watacaala meel gaara ku xusay, fafaafad caynaahu ay indhihiisii marka ay shubneen ay ooyeen. rawaahu lbukhaariyi wa muslim. alxadiidu الرابع عشر, xadiidka 14 can cimraan bin xusaynin radia allahu canhu can الnabiy sala allahu calayhi wasalam. xadiidkan waxaa la weriye cimraan bin xusein allah kala noqday. qaala nebigu wuxuu yidhi khayrukum waxaa idinku kheyr badan qarniga aniga aan noolahay. huma kadib alladiina kuwii baa idinku kheyr badan yaluunahum xigay, qarnigii xogay kuwa joogay ah idinku kheyr badan. huma kadib alladiina kuwii baa idinku kheyr badan yaluunahum qarnigii xigay. huma kadib yakuun waxaa ahaanayo oo imaanayo bacdahum saddexdaa qarni gadaashood waxaa imaanayo qowmun qoom baa imaanayo, dad baa imaanaya saddexdan qoom gadaashooda. yashhaduuna markhaati kici doona, walaa yustashhaduun ayagoo aan markhaati loo dirsanin, ayagoo aanan la markhaati gashin ayaa markhaati kici doonaan. wa qowmun qowm kalena yaquunuuna dadkay khayaanayaan, walaa yu'tamanuuna mana la aamini doono, ayagoo aan la aaminaynin ayay dadka khayaamayaan. wayandiruuna shardi bay galayaan, walaa yafuuna mana oofinayaan. wayadharu fiihim waxaana godahooda ka muuqanayo assimanu, cayl baa ka muuqanayo. dadka ayaga cayl baa ka muuqanayo oo tusaalahan lagu sheegay. khayrukum qarnii, waxaa idinku kheyr badan qarniga aniga aan noolahay, waa qarnigii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam. huma aladiina yaluunahum, kadibna waxaa idinku kheyr badan kuwa xigo oo qarniga xigo waa qarnigii saxaabada ay joogtay. qarniga kuwaad waa qarnigii nebiga, qarniga labaadna waa qarnigii saxaabada ay joogtay. huma kadibna aladiina yaluunahum kuwa xigo oo taabiciyiinta ah ayaa idinku kheyr badan. huma kadibna yakuun waxaa imaanaya bacdahum saddexdaa qarni gadaashooda qowmun qowm yashhaduuna markhaati kici doono,
walaa yustashhaduuna ayagoo aan markhaati loo dirsanin oo la markhaati gashanin ay markhaati kacayaan way ku degdegayaan. ويقولون ويخيانا ينددك ولا يؤتمنون من الآمين دونه وينذرون ويشرط قلايان ولا يفون شرطنا مؤفينيان ويظهر فيه محاكم وقلنا السمن عيل باك موقني رواه البخاري ومسلم. marka halkan waxaan ka fahmaynaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisii ina marka ugu khayr badnaa inta adduunyada soo martay. qarnigii oo nabi ilaahay nuux xataa waxa ka khayr badan qarniga oo nabiga noolaa ayaa ka khayr badan. qarnigii Suleymaan oo noolaa, qarnigii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo noolaa ayaa ka khayr badan. kadib waxaa ku xig qarniga saxaabadii, kadib taabiciintii, kadibna dadka imaan doona sifooyinkoodii baa lagu sheegay. waxaana ka muuqan doona cayil baa ka muuqan doona. cayil qofka ilaah uu dhali karaa, cayilka uu dhali karaa, laakiin tan sifooyinkan markoo yeeshto markaas buu cayilka yeelan doonaa. markhaati asigoo aan loo dirsanin ayuu markhaati iska galayaa, dadka wuu khiyaanaya, wax aaminaya ma leh, shardi buu galayaa, wax oofinaya ma leh, wax markaa wax uu dhiibanaya ammaano u dhiibanaya ma leh. asiga dhanba waa ninbo iska socdo khalfoof ah. wayadharu fiihi musaman waxaana ka muuqanaya cayil ayaa ka muuqanaya. marka nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis kalena waa jiraa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay shahaado ama markhaati waxaa ugu khayr badan midka aan la markhaati galinin oo markhaati galayo asigoo aan markhaatida loo dirsanin markhaati galaya. waa xadiis asiguna saxiix ah oo kan radinayo, laakiin kan mid buu ku radineynin. culimadu way kala saareen, waxay yiraahdeen qofka hadduusan markaa aan loo dirsanin oo markhaati galintii loo dirsanin, qofkaas oo galayo sifooyin baa lagu qaadanaya. kow waa inuu qofka horta qaangaar ma yahay, qofka qof markhaati gala ma yahay, qof markaa oo caqliga leh ma yahay. waxaas la isweydiinaya in badan. haddana haddii intaasba aysan ahayn oo mid qaangaar uusan ahayn, majnuun uu yahay ama waxaa maandooriyaha waxaas isticmaalo asiga qalbi maskaxda laga galay, kaasina waa la yiraahdaa markhaati ma noqon karo. asigoo markaa oo sidaa ah markhaati ma gali karo. ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن waxaana ka muuqanayo cayil baa ka muuqanayo. midka markhaati loo dirsanin ayaa u khayr badan, laakiin shardiyada lagu xiray ayaa ah inuu qofka uu yahay qof wanaagsan oo muslim ah oo markaana qaangaar ah, markaana waxgarad ah. saxaabi baa jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam oo yiraahday markhaatidiisa waxay u dhigan tahay 4 markhaati. saxaabigan halkiis markhaati bay u dhigan tahay. saxaabi uu yiraahday cimraan kan maro nabiga sallallahu ilaahi subhanahu wa ta'ala oo imtixaanay kitaabka khulaasa nuur al-yaqiin ayaa ka hadlayo maya sifa salaatu nabiy ayaa khulaasa sifa salaatu nabiy ayaa ka hadlayo oo wuxuu leeyahay badii baan la maanshootay asigoo markaa bawaasiir ku taalo way maanshoonaysaa, salaadii dukashadeedii baa laga rabaa, bawaasiir buu ilaahay ku imtixaanay cimraan bin xusayn asiguna. حديث رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عشر حديث كشن إتونات عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله إلى كلام نقده أبي بن عمر أسكن السحايب وعلى كلام نقده، لكن ابن العاص عاص كان نكاليرادو نكا قلبه مركا عبد الله بن عمر اللي بدأ بالسحايب أهينه ابن العاص كان وعنين قال أسكنا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دبي buu ahaa mid baa inuu u shaqeeyay oo lacagtiisii ku booday oo saxaabada kamid ah. markaas wuxuu yiraahday lacagteedii isi, markaas wuxuu yiraahday lacag kuma hayo kada wa kada isida buu yiraahday. ninkii buu wuxuu yiraahday maalinta qiyaamo baa la soo istaagi doonaayo oo lacagtii aad isi doontaa. markaas wuxuu ku quslay oo wuxuu yiraahday waan ka maal badana, waan ka ilmo badanahay, waan ka wax badanahay, maalinta qiyaam markaa la gaaran sidaas ayaan kaaga sharaf badnaanaya oo kaaga maal badnaanaya, anaana kaa ficnaan doono maalinta qiyaam aanu madal ah. sidaasoo ku goodiyay saxaabigan oo aabihiis oo gaalka bin al-Caas la yiraahdo
wiilkii cabdillaahi iyo bin camar ee saxaabiya ahaayeen asigoo sidaa noqday. qaala wuxuu yidhi marka arbacun afar man kuna qaala ana nabiy sal ly slm qaala wuxuu yidhi arbacun afar man ruuxii kuna ay ahaadaan fiihi gudihiisa kaana wuxuu ahaaday munaafiqan munaafiq khaalisan barax tiran munaafiq khaalis ah oo cad weeye. waman kaanad qofkii ay ahaato fiihi dhexdiisa khaslatun hal qeyb minhunna oo afartaas ka mid ah kaanad fiihi waxay u noqonaysaa oo ahaanayo gudihiisa khaslatun qeyb oo min annifaaqi oo gaalnimada ka mid oo munaafiqnimada ka mid ah xataa yadacaha ilaa uu ka haro qeybtaas. kow idaa tumina markii la aamino khaana wuu khiyaanaya dadka. wa idaa xadatha marka uu sheekeynayana kadaba been buu ku sheekeynayaa. wa idaa caahada markuu balan galana oo qof balanka qaadana khadara wuu ka baxayaa barintii. wa idaa qaasama marka uu doodayana fajara been buu ku doodayaa faajirnimo buu ku doodayaa. rawaahu lbukhaariyu wa muslim. afartaas shay haddii qofka qeyb ka mid ah lagu arko, tusaale balan hadduu balanku beenla uu yahay munaafiq baa loogu yeerayaa. wa idaa qaasama fajara markuu doodayana haddii halkan lagu arkana beenta oo ku doodaya wuxuu asiga uusan lahayn ayuu markhaatiyaal u samaysanayaa, ayuu ku murmayaa, ayuu lacag ku bixinayaa, qarash ku bixinayaa, laaluush ku bixinayaa, dhul asiga uusan lahayn ayuu dood oo dheer la galaya oo been ah ayuu la galaya, sanadooyin ba qaadanaysaa. marka ilaa uu ka harayo waxaasi oo xataa yadacaha weeye ilaa uu ka herayo munaafiq baa loogu yeerayaa. marka xataa yadacaha ilaa uu ka herayo. idaa tumina qaana markii la aamino dadka uu khiyaani. wa idaa xadatha markuu sheekeynayna kadaba been buu ku sheekeen. wa idaa caada markuu balantama khadara balantii wuu ka baxayaa. wa idaa qaasama markuu doodayana fajara been buu ku doodayaa. rawaahu lbukhaariyu wa muslim. arbacun afar man kuna ruuxii ay ahaadaan fiihi dhexdiisa kaana munaafiqan munaafiq buu noqday oo ahaaday khaalisan oo khaalis ah. waman kaanad fiihi qofkii ay ahaato dhexdiisa khaslatun hal qeyb minhunna oo afartaas ka mid ah kaanad fiihi waxay u ahaanaysaa khaslatun kaanat waxay noqonaysaa fiihi gudihiisa ayaa waxaa ku jirayso khaslatun hal qeyb oo min annifaaq munaafiqnimada ka mid ah xataa yadacaha ilaa uu ka haro. xataa yadaca ilaa ka haro haa qeybtaas ilaa oo ka haro hal qeyb ka mid ah ilaa iska daayo ama dhammaantood iska daayaba waa loogu yeerayaa, munaafiqnimo baa ku jirto. idaa tumina markii la aamino qaana uu khiyaano. wa idaa xadatha markuu sheekeynaya kadaba been buu ku sheekeen. wa idaa caada markuu balantama khadara wuu ka bixi. wa idaa qaasama markuu dooday fajara been buu ku doodayaa. wa fii xadiithin ukhraa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay haddii nin walba wuxuu sheegtay la iska sii lahaa, ninbaa qoom bay waxay sheega lahaayeen nin dhiigiisa bay sheega lahaayeen. qof kasta wuxuu sheegto haddii la iska sii lahaa oo anaa lehaye anaa leha qaado kan qaado oo la iska dhihi lahaa, ninbaa waxayba iska sheega lahaayeenba nin dhiigiisa bay iska sheegayaan imaalkiisa bay iska sheega lahaayeen. marka qofka wuu doodaya wuu qeylinayaa yaanan la siinin asigoo aan waxba laga hubinin. been buu ku doodaya munaafiqa sidaa weeye. ilaahi subxaanahu watacaala 5 calaamad ayuu ku sheegay munaafiqa iyo ilaa 4 calaamad ayuu ku sheegay. wuxuu yiri horta ina almunaafiqiina munaafiqiinta yuqaadicuuna allah ilaahay bay khaadacayaan oo ay dhakrayaan. wa huwa qaadicuhum ayaga ayaaba dhakran oo ilaahay markaa qaadacaya. kow taasi waa arinta kuwaad ilaahay bay dhakrayaan. wa idaa qaamuu markii ay salaada u istaagaan qaamuu way istaagaan kusaala ayagoo wahsanayo ay salaada u istaagayaan. waa calaamadii labaad. yuraa'uuna annaasa dadkay istustusayaan. waa araamadii saddexaad. munaafiqiinta dadkay istustusayaan markay camal fiican sameynayaan, sadaq markay la baxayaan, salaad markay dukanayaan, markay horumar ay sameynayaan dadkay istutusayaan. arinta afraadna walaa yadkuruuna allaha ilaahay ma xusayaan ilaa qaliilan waxyar mooyaane. ilaahay ma xusayaan waxyar bay xusayaan. salaad markay dukanayaan u istaagaan wahsi bay u istaagayaan, dadkay istutusinayaan in badan ilaahay ma xusayaanoo waxyar bay xusayaan, ilaahna way dhakrayaan. afartaas calaamadood ayuu ilaahay subxaanahu watacaala munaafiqa ka bixiyey. sidoo kale fii suurati baqara alla wuxuu leeyahay marka wa idaa khalow ilaa shayaatiinihim qaaluu inaa macakum
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا مركي دادكي مؤمنين تي أي لكلمان إي دادكي آيغا مركا لوحها مركي لكلمان وحيلين وإذن رميني لكن مركي أي قال الذي إشادين تي لكلمان شادين توضا وحيلين أنا إذن كمدناهي كواس وان كجز جيسيني كواس وان ككبريني كواس جز بينغا إهد سيداس بيلين مركي أي شادين توضي أي لكلمان afartaas shay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala calaamadooyinkaa buu ka bixiyay calaamadooyin badan munaafiqnimada iska ilaaliy waxaa fi xadiidin ukhraa nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay adkhalu salaad cala almunaafiqiin salaada munaafiqiinta korkooda ku culus waa salaatu alcishaai waasubux qofka hadduu salaad subax ay ku culus tahay ay cishaha ay ku culus tahay ninkaasi munaafiqnimo baa soo gashaye waa inuu isdhaqa oo iska gaaraa oo salaadaha cishaha iyo salaadaha subaxda ku ilaaliya jamaacada ku ilaaliya afartaas shay ayaa lagu sheegay qofka munaafiq ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay nabiguna inuu sheegay sallallahu calayhi wasallam qofka munaafiq way ku culusta salaada subax inuu dukado iyo salaada cishaha الحديث السادس عشر حديثك تضوء لح يتبن حديثك لح يتبن حديثك ودن بعشر كيني ستحات وهي عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة لوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لوري قال وحيري نبيك آية المنافق منافق على مذيسة 3 قفك منافقة آيذوين كيس وحلو قرنيو وسدح آية المنافق منافق على مذيسة 3 كو إذا حدث مركو شاكينيو كذب بينبوكو شاكينيا وإذا وعد مركو بلن تمنا أخلف وكبحيا بلنتو كبحيا وإذا تمنا مركي لآمنا خان وخيانيا مركي ما لغو آمنو لعق مركي لغو آمنو مركي إيها ليريا ضدكي وخيانيا انتاس أي ديبتو أوبين أيو لياي كوما هايو بولياي كوما أركين بولياي أسيقو وحلو ديبا أيو حولا مبوكو أركين با أسيقو أوك أيو لياي ومنافق مركي لآمنو وحلو آمننا خان وخيانيا حديثكي أن صدف نحو شيء أفر شيء كان وحاكا مقن وإذا خاص مفجرة أياك مقن مركا حديث كان باهوريي أو سدحدا أرين كهدلي إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خانة قذال بقى النبي له شيء أرنتا أفراد حديث كين أصول عليه إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خانة وإذا خاصم فجرة طيب ما نعمرك لو هذا حديث اسمه الديديان مركو الضوضة يبين بوكو الضوضة يا منافق على مدوين كيس النبي صلى الله عليه وسلم وإنه شيء الله سبحانه وتعالى وإنه شيء رواه البخاري ومسلم حديث البخاري ومسلم باوريي والله سبحانه وتعالى أعلم.